deegaanka ay ku nool yihiin xoolo ka badan 32 milyan oo neef boqolkiiba 85 bulshada ku dhaqanaayeen xoolo dhaqato noloshooduna ay ku xiran tahay wax soo saarka xoolaha haddii ay noqon lahayd caanaha hilibka iyo iibinta xoolaha laftoodaba xoolaha iyo shacabka Soomaalida lama kala saari karo waana laf iyo dhuuxood amaba ul iyo diirkeed xooluhu halkay kaga jiraan nolosha shacabka deegaanka Soomaalida Itoobiya waxa ku cadeyn kartaa halqabsiga suugaanta ay badan lagu amaano gabdhaha Soomaaliyeed oo ah fardaha iyo geela xooluhu nolosha Soomaalida Itoobiya waxay kaga jiraan door wax loo dhigawsan jirin meesiyada kala duwan ee xoolaha qofba qofku ka xoolo badan yahay ayuu maalqabeen u ahaa laakiin waqtigan ay isbedelayso cimilada adduunku saameynta dhaqaale ee xooluhu ku lahaanaya nolosha waa mid laga walwal qabo haddii aan loo sameeynin xeelado iyo tabo lagu joogteeyo kor u qaadida badqabka xoolaha iyo la qabsiga cimilada hadba isbedelaysa ee aan la isku halayn karin inkastoo xooluhu ay mudnaantaas ka lahayn ummadda deegaanka agtooda haddana wax mudnaana lama siinin wixii ka horreeyay 2003 waayo maamuladii xilligaas ka hor jiray doorka xooluhu uga qalmaan kobaca dhaqaalaha dalka iyo deegaanka ma ayna garanaynin taasina waxay keentay in xooluhu ayna dhaafin in caana laga maalo la qasho hilibkooga la cuno iyo in abaaraha soo noqda ay ku dhamaadaan darteed si meesha looga saaro mushkiladan soo jireenka ayaa waxay xukuumaddu bilowday daalo si dhab ah loogu kordhinayo doorka xoolaha ay ku leeyihiin dhaqaalaha dalka iyadoo dib loo saxay qaab dhismeedka oo xafiiska laga dhigay mid si gooni ah ugu taagan xoolaha iyo xoolo dhaqatada xukuumadda dawladda deegaanka Soomaalidu waxay matqaanay ahmiyad gaar ah ay siisay kheyraadka xoolaha ee deegaankeena iyagoo matqaanay xukuumaddu ay u asaastay xafiis ka shaqeynaya ama matqaanay si gaar ah qorshe gaar oo laga hawlgalayo dhanka matqaanay kheyraadka xoolaha ayay matqaanay ay asaastay haddaba xukuumaddu waxay sanad walba miisaaniyad badan u qabataa badqabka xoolaha si looga warhayo oo aanay hoos ugu dhicin tayada iyo caafimaadkoodu waxaana ceelasha caanka ah ee badanaa xooluhu isugu yimaadeen sanadkii laga fuliyaa ololaha talaalka iyo daaweynta xoolaha waxaana adeegan oo bilaasha sanadkii celcelis ahaan lagu talaala ama lagu daweeyaa 10 milyan oo neef oo xafiiska horumarinta xoolaha iyo reer guraagu u fuliyo talaalkan iyo daaweyntan waxaa kaalin weyn ka ciyaara xirfadlayaasha caafimaadka oo ah kuwa heer deegaan laga diro amaba ciidanka Leopoldska oo ka hawlgala goobaha shaqooyinka ay ka qabtaan gaar ahaan meelaha fogfog xafiisku wuxuu matqaanay daraasadyo ku sameeyay xeelal waaweyn ee matqaanay deegaankeena ka jira oo xooluhu matqaanay isku imanayaan xilli roobaadkana matqaanay ay isku imanayaan xilliga matqaanay jiilaalkuna ay isku imanayaan matqaanay daraasad lagu sameeyay iyagoo wax tacaadarka matqaanay xeelashaas oo dhan matqaanay adeega talaalka iyo daaweynta matqaanay si joogto ah laga fulinayo sidoo kale waxa markii ugu horeysay xafiisku matqaanay uu asaasay Animal Mobile Health Team kuwaas oo matqaanay markii ugu horeysay aan ka hawlgalinay gobolka Nogob sidoo kale waxa sii jiray ilaa 610 animal health postiyo oo ayaa matqaanay deegaanka ka jira oo dhamaantood ba matqaanay adeegii laga rabay ay matqaanay si bixinayaan dhanka matqaanay kor u qaadida caafimaadka xoolaha muddada matqaanay 5 sano ee soo socota waxa la rabaa in matqaanay aanu ka baabino cudurka BPR-ka loo yaqaano inaan wadanka oo dhan matqaanay laga baabiyo ayaa matqaanay qorshe 5 sano ay nagu jirta waxaan ku mahadnaqaynaa inay xanaanada xoolaha ay si wacan noo qabatay oo arigii noo muday oo dawadiina siisay ayaanu mahad oo gaali noo meen arigii noo mudeen ay si wanaagsan noo soo dhaweeyeen oo si fiican noo siiyeen aan lacagna weydiin ayaanu ku mahadnaqaynaa ugu mahadnaqaynaa dawladda iyo xanaanada xoolaha iyo dhakhtarka iyo ilaahayba waxaanu helay daryeel aad iyo aad u wanaagsan oo dhan walba ah maadaama yani hadda maanta waxa ka hadlaynaa waa talaalka cidda
توسيلك ويا حولها حنا فربنا واقع حولها لو وحي اللي يجري laga dabargooyay hada waxa dawladaas geela ku iyo qanji iyo waxyaalo badan uu ku jiro arigana beel hulun bal ilaahay qormudux iyo cudurro badan xoolaha ay ku jiraan dawladuna ay la dagaalamayso ay la dagaalantay cudurka aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa arigii kana waa la talaalay kii kalena waa kaalka hore jooga te ilaahay ha barakeeyo ilaahay ha barakeeyo ilaahay caafimaadna ka raaciyo dawladda way ku mahadsan yihiin waxa la talaalay geeli baa la talaalay konton neef oo geelaha la talaalay aad baan ugu mahadanayaa aan soo dhaweynayaa yaani mataqaana dawladdeeda yaani mataqaana chance inta leeg isisay si fircoonile ayaa naloo talaalayaa xoolaha daawadana naloo siinhayaa nimanka noo yimaada waa niman aad iyo aad gacan wanaagsan ugu qabta waa niman talaalka si fiican ugu talaala geela maalintii ceelka waxa isugu yimaada ilaa 7,000 oo neef oo geel way isugu timaada lood iyo arina way ka daran yihiin si fiican baan loogu talaalaa dadka jooga ee noo talaalka noo wadana waa dad aad iyo aad gacmo furan iyo waji fiican noola yimaada si loo hubiyo caafimaadka xoolaha waxay dawladdu samaysay shaybaadh casri ah oo qalabka iyo xirfadlayaashiisiiba leh oo lagu baadho muunadaha kala duwan ee laga diyaariyo xanuunada gaar ahaan kuwaasiiba xoolaha shaybaadhkan ayaana ah mid lagu furdaamiyo xanuunada ka dilaaca deegaanka xoolaha deegaanka halista ku ah iyadoo wixii awooddaas ka badanna loo diro shaybaadhka qaranka deegaanku wuxuu leeyahay mataqaanaa regional laboratory ayaa ka jira kaas oo mataqaanaa adeeg bixintiisu aad u sareyso oo ESTV hadii kor markii lagu sii daayay deegaanada marka jaarkanu nahay sida Puntland Somaliland amala marka ESTV-ga media-geeni markay ka daawadeen ay dhaheen adeeg bixin bay ka soo doonanayeen intay waraaq soo qoraan saambilo ay soo diraan ay matqaan xagga inta laga jagareeyo brand badan ba matqaan u gudbinay marka wuxuu matqaan awood u leeyahay in matqaan xudurada ka jira deegaanka laga jagareeyo saambilo inta la soo qaado xagga matqaan laga jagareeyo la sii gudbiyo ayuu matqaan awood aad badan u leeyahay waxaan haysanaa xirfadlayaal matqaan takhasus fiican ku lahaa dhanka matqaan shaybaarka xudurada xoolaha dhaqaatiir Soomaaliya ayaa joogta xaruntani kaliya maaha xarun matqaan xudurada xoolaha lagu baaro waxay matqaan adeeg siinaysaa jaamacadda Jigjiga ardayda matqaan ku baranaysa fieldiga matqaan veterinary medicine-ka waxay matqaan practical ay ku qaataan xaruntan bay matqaan practical ay ku qaataan waxa weeyaan waa xarun matqaan taayadeedu aad u sareyso marka waxaan mustaqbalka ku jirnaa in xaruntani matqaan la balaariyo gobolada matqaan at least muddada matqaan 5 sano ee soo socota gudaheeda la gaarsiiyo ilaa matqaan 4 xarun ama matqaan 3 xarun annagoo la kaashanayna wasaaradda xoolaha iyo kalluumaysiga ee heer federaal qolkan aad aragtaan waxaan waa qolkii loogu talagalay in lagu baaro qaybta parasite-ka ama parasitology lab qaybta la yiraahdo weeyaan waxaan ku kala saarnaa ma aragtay cudurrada ka yimaado xagga dulinada ama parasite-ka la yiraahdo kuwa ama gooryaanada siday kala yihiinba marka waxyaabo badan ayaan halkan aan ugu faa'iideysanaa sida cilmi baarista sida ardayda jaamacadda oo kale oo practical u timaado oo halkan aan ku barno waxyaabo badan ayaan u isticmaalnaa maaragtay qaybtan inaan ku kala saarno xarunta caafimaadka xoolaha ee lagu baaro cudurrada xoolaha
kolka ujeedada waa saasantay waxa weeyaan kulli cudurro badan oo ayaa jira xoolaha ku dhaca kolka cudurrada marka xoolaha ku dhacaan waxa loo baahan yahay in la baaro oo la ogaado cudurba nuuc uu yahay si macnaha dawadii iyo talaalkii ku habboonaa xoolaha loo gaarsiiyo cudurro looga hortago kolka inta ugu badan waxaan sameynaa markay cudur dilaacaan tiiman baa la diraa sambalkaas soo qaadaan halkan ay keenaan cudurku wuxuu yahay ayay baaraan marka la wada kadib waxaan u gudbinaa waaxda caafimaadka xoolaha kadibna iyaguna macnaha waxay sameeyaan talaal ku habboon macnaha cudurka laga hortagi karo iyo daaweynta ku habboon ayay geeyaan koska laabtadu saas u shaqeeyaa haddii aan ka hadlo awoodda laabtadu uu leeyahay qalabka u baahan qalab macnaha oo dhammaan qalabyada uu u baahan yahay in cudurrada xoolaha la baaro dhammaan uu leeyahay kolka wixii macnaha rijin ahaan annaga naga awood badan waxaan u gudbinaa Addis Ababa meel la yiraahdo meeshay baarka qaranka caafimaadka xoolaha ayaan u gudbinaa laakiin cudurrada wixii awoodda rijin ahaan lagu baari karo halkan aan ku baarnaa kolka cududa shaqaalaha uu baahan yahay dhammaan uu leeyahay tirada rugaha caafimaadka xoolaha oo 2003 ahaa 319 waxaa la gaarsiiyay 622 rugood waxaana muddada 5 sano lagu kordhiyay 230 tirada guud ee xirfadlayaasha caafimaadka xoolaha oo 5 sano ka hor ahaa 2140 xirfadle waxaa la gaarsiiyay 3800 oo xirfadle waxaana lagu kordhiyay 1660 xirfadle tirada dhakhaatiirta xoolaha oo 5 sano ka hor ah 12 waxaa la gaarsiiyay 29 waxaana lagu kordhiyay 17 dhaktar kasoo taas waxay dawladdu xoogga saartay in kor loo qaado saamiga dhaqaale iyo dakhliga xooluhu ku leeyihiin kobaca dhaqaale ee xawliga ku socda ayaan joogsiga lahayn deegaanka maadaama deegaanka uu yahay kan ugu xoolaha badan Itoobiya xarumaha suuqgeynta xoolaha oo 2003 ahaa 10 waxaa lagu daray 17 taasoo wadarta guud ka dhigaysa 27 xarumaha suuqgeynta xoolaha oo ku yaala degmooyinka deegaanka waa kuwa si casri ah u habaysan lehna goobaha xooluhu ka cabaan muddada ay joogaan sayladda dhanka matqaanay kaabiyaasha dhaqaale haddaan ku soo noqono kaabiyaasha matqaanay suuqgeynta xoolaha ama matqaanay maalgasbostiyada in waxa matqaanay qorshe ahayd in annagoo matqaanay la kaashanayna hay'adaha matqaanay bahwadaagta ah wasaaradda xoolaha iyo horumarinta kalluumaysiga ee federaalka in matqaanay wax soo saarka matqaanay xoolaha si kor loo qaado suuqgeynteedana matqaanay si meel fiican la gaarsiiyo muhiimadda ay fursadda haddaan haysano waa warshada jesh oo matqaanay ka jirta deegaanka warshada xaanaha ee barwaaqo iyo quarantine ama maxjarka xoolaha waxaasoo dhan waxay matqaanay muhiim u tahay bulshada xoolo dhaqatada ay matqaanay muhiim u tahay oo waxaana matqaanay xal ama matqaanay albaab ay u tahay dhanka matqaanay suuqgeynta xoolaha ay muhiim u tahay waxaa dhowr sano ka hor laga bilaabay qabadlaha camalaha ee degmada Jijiga macshirka loogu talagalay in lagu hubiyo caafimaadka xoolaha inkastoo dahay dhismaha mashruucani haddana marka la eego xawliga uu dhismuhu ku socdo waa mid dhiirigelin leh waan dardarta ay ku wado dhismihiisa shirkadda dhismaha iibka iyo adeegga gaarka ee booliska oo kala wareegtay qandaraasle muddo dheer hawshiisa gacanta ku hayay waxaa matqaanay fursad ah oo hadda jirta in dhanka matqaanay suuqgeynta xoolaha natfarkiisa deegaankiina matqaanay laga dhisay ama maxjarka weyn ama matqaanay maxjar weyn oo quarantine-ka matqaanay xoolaha matqaanay la exportiga matqaanay dibadda loo dhoofinayo matqaanay laga jekarayo ayaa matqaanay deegaanka laga dhisay waqti xaadirkana gabagabo ayuu marayaa haddii aan leedmo muddada matqaanay halka bil ay soo socdo gudaheeda in xari laga jaro ayaan matqaanay ku rajaweynahay kasako macjarka xoolaha deegaanka oo dawladdu sanad kasta caafimaadkooda ku bixiso malaayiin bir oo lacag ayaa haddana waxay si fudud uga bixi jireen xuduudka deegaanka iyadoo aan wax manaafacaad ay ka helin shacabkii ku tabcayay dawladduba khasaarahaasna hadda waxa xal waara u noqday
warshada gowraca xoolaha oo maalqabeeno deegaanka u dhashay oo taageero ballaaran ka halaya xukuumadda deegaanka iyo dowladda Mareykanku ay ku fuliyeen 172 milyan oo bir waxayna maalintii gowraci kartaa 600 oo neef oo lo ah iyo 6,000 oo ariya sidaa darteed macshirkan iyo warshadani waa kuwa isqoodinaya oo xoolo dhaqatada deegaanka ku xidhaya suuqyada caalamka meeshana ka saaraya xooluhu iyagoo lagu tabcay haddana xoolo dhaqatadu aanay ka heli jirin wax faa'iido oo xuduudka deegaanka si sharci darro uga bixi jiray sidaa darteed markaan dib u fiirino suyaalka xoolo dhaqatada deegaanka iyo rajada hortaala waxa ay noocad in xoolaha deegaanku ay dhaqaalaha dalka ku yeelan karaan kaalin u dhow wax soo saarka beeraha dowladda Soomaaliya shacabka ku nool wuxuu leeyahay hantidiisa ugu muhiimsan waa xoolaha nool weeyaan balse dhibaatada jirta xoolaha nool in sidii muhiimka ahayd ama mudnaan lagu ganacsado dhibaato fara badan baa muddo ka haysatay still ilaa haddana jirta taasna waa sababta keenaysa xoolaha deegaanka Soomaalida Itoobiya inay kontrabaan si sharci darro ku baxaan maadaama ay jirin fursado kale oo ganacsi oo xoolo dhaqatadu ay uga faa'iideysanayso marka hadda laakiin warshadan markay si buuxda u dhaqaaqdo waxa hubaala inay dad badan ay wax ka heli doonaan hadii la faa'iido badan ka heli doonaan marka saaleeyahay halkii shifti waa 8 saac 2,000 oo neef bay qali kartaa oo waxa weeyaan process gareyn karaysa diyaar reeri ka dhigi karaysa halkii hadii laga dalbado marka ilaa 6,000 oo neef maalintii way process gareyn karaysa way sameyn karaysa oo diyaarin karaysa way qali kartaa way diyaarin kartaa baraskii uu mariyo dhan bay marin kartaa kadibna way diyaarin karaysaa waxaalaha ugu muhiimsan waxa weeyaan inay hilibka markii la qalo ay 2 sano hayn karaan hilibkii oo xumaalin ay hayn karaan warshada hilibka ee jeesh ee hadda la furay waxay matqanay fursad weyn u tahay bulshada xoolo dhaqatada dhanka suuqgeynta xoolaha ayay matqanay furiin ugu noqonaysaa iyagoo hal shifti kaliya lagu qalayo xoolo matqanay ka badan 2,000 oo ariya iyo matqanay 200 oo dibi ah iyagoo waqti xaadirka warshadu ay ku jirto dhanka matqanay hilibka geela sidii matqanay isagana loo hirgelin lahaa caanuhu waxay ka mid yihiin wax soo saarka xoolaha ee loogu isticmaalka badan yahay sidaa darteed ka hor intaan la sameyn warshada caanaha habayse ee barwaaqo waxaa la sameeyay iskaashatooyin caanaha laga keena degmooyinka isku ururiya siina iibgeeya isku xidhnaanshaha iskaashatooyinkan markii la arkay waxay dawladdu ganacsatada u bandhigtay fursadaha maalgashi ee caanaha ka bannaan sidaa darteed ganacsatada deegaanka qaar ka mid ayaa waxay fureen warshada caanaha lagu habeeyo iyadoo caanahan aad looga isticmaalo deegaanka gudihiisa magaalooyinka Diridhabe iyo Addis Ababa iyo waliba dalalka jaarka ee Djibouti iyo Soomaaliland oo loo dhoofiyo fursadani waxay meesha ka saartay in caanihii ka khasaari jiray xoolo dhaqatada ay ka helaan hadda macaash iyo lacag ay ku mareeyaan noloshooda caadiga ah waxaa jirta warshada caanaha ee barwaaqo iyaduna matqanay iskaashatooyinka matqanay dumarka ah ama matqanay oo ka ganacsada caanaha ay matqanay dhanka suuqgeynta caanaha waxyaabo fara badan bay matqanay ka qabatay mustaqbalkana waxaan yeelan doonaa inaan matqanay warshadaha dhanka matqanay xoolaha aan in badan aan yeelanayno iyagoo warshada hargaha iyo saamaha matqanay waqti caadirkan matqanay inay matqanay dad ay la bilaabo oo aan ku rajaynahay naaxinta xooluhu waa qayb kale oo xafiiska horumarinta xoolaha iyo horumarinta reer miyigu qabto kana caawiya iskaashatooyinka ee shakhsiyaadka raba inay meesiyada kala duwan ee xoolaha naaxiyaan gaar ahaan xagga talooyinka iyo daawooyinka laga maarmaanka u ah xoolaha iyo caafimaadka ayuu xafiisku ka caawiyaa waxaana xusid mudan in xoolahan marka la naaxiyo dib ay u iibiyaan iskaashatooyinka ee shakhsiyaadka ku howlani dibida waan ku cayilinaa marka dibida ay taal xunta soo iibsano baan cayilinaa dabeed markay noolaadaan halka meel lagu yimaado waan laga iibsadaa xafiiska xoolaha wayna caawinayeen dawooyinka iyo wixii xanuuna gargaarayeen
markuu neefku ay taalxin markaad keento markuu cayilo ee buushiga cuno uu naaxayaa dabeed markaa faa'iido keenaya si loo xaqiijiyo tayada wax soo saarka xoolaha ayaa xafiisku waxa bulshada baray habka loo sameeyo rimay gacmeedka la isuguna tallaalo xoolaha deegaanka iyo kuwa dibadda laga keeno taasoo gacan ka geysatay inay kor u kacaan tayada xoolaha ee hilibka iyo caanaha si mataqaanaa caanaha kor loo qaado hilibka kor loo qaado xoolahayna tayada kor loo qaado xafiisku sanadkan wuxuu mataqaanaa ku jiraa in 3,000 oo ariya aanu 21 degmo aan ku tijaabino artificial inseminationka rimay gacmeedka mataqaanaa lagu sameeyo xarunta mataqaanaa artificial inseminationka oo waqti cadirka maraysa 7 goobood in la gaarsiiyo 15 goobood oo artificial inseminationka ah marka xoola ilaa 3,000 oo neef ah in mataqaanaa rimay gacmeed ama mataqaanaa shawada mataqaanaa looda wax soo saarkeedu sareyso in lagu tallaalo ayaan mataqaanaa aan ku jirnaa xafiiska horumarinta xoolaha iyo reer guraagu isagoo kaashanaya xafiisyada bahwadaagta la waxa uu door weyn ka ciyaaray calafka xoolaha ee laga beeray degmooyinka Beercaano iyo Hadhagaala calafka xoolaha ee Sudan graaska loo yaqaan oo madaxdii hore ee deegaanka iyo ciidamada Liverpoolsku ka beereen degmada Beercaano waxa uu noqday gurmad wax loo dhigay uusan jirin xilligii abaaraha baan ay ka dhaceen deegaanka isla markaana lagu sameeyay bixiyay xoolo fara badan kadib markii loo qaybiyay bulshada city sidoo kale 400 oo hektar ayaa lagu beeray degmada Hadhagaala kaas oo waqti xaadirkan heerkii ugu dambeysay maraya dhawaana la filayo in la soo gooyo si xoolaha laga faa'iideysto waxa muhiim ah inaan mataqaanaa aanu ka shaqeyno xoolaha kaliya laga shaqeynin xalaf xoolahana mataqaanaa in laga shaqeeyo xafiisku muddada mataqaanaa 5 sano ee soo socota waxa mataqaanaa qorshe inoogu jirtay in waqti caadirkan halka hektarada mataqaanaa lagu beerayo xalafka xoolaha waxa mataqaanaa la gaarsiiyay 1500 annagoo mataqaanaa 1500 ka kaxayna 5 sano ee soo socoto waxa la gaarsin doonaa 80,000 oo hektar in mataqaanaa la gaarsinayo iyagoo mataqaanaa laga hirgelin doono degmooyinka mataqaanaa uu ka jiro dib u dejinta isla markaana degmooyinka uu maro webiyada mataqaanaa aan mataqaanaa laga hirgelin doono qorshe ugu weyn ee 5 sano ee soo socota qaban doono waa dhanka mataqaanaa soo saarista xalafta aysan waxaana asaasi doona 36 goob oo fodar bankiyo ah ayaana asaasi doona xafiisku waqti xaadirkan goday waxa laga soo saaray xalaf aad u fiican oo sanadkan naftarkiisa abaarta mataqaanaa gobolka city ay mataqaanaa waxa laga keenay waa gobolka Shabeelle waqti xaadirkan gobolka gudihiisa Hadhagaalana waxa laga soo saarayaa 400 oo hektar ayaa mataqaanaa aan ka soo saaraynay oo xalafta aysana sidoo kale dhammaan maamulada mataqaanaa gobolada iyo maamulada degmooyinka madaxafiisyada xafiisyada xoolaha iyo beeraha iyo horumarinta reer miyiga ee degmooyinka waxa mataqaanaa waajib ku ah ama mataqaanaa inay qaataan ahayd qorshe 5 sano ay ku darsadaan in aan soo saarno xalaf aad u tiro badan isla si mataqaanaa anagoo ka shidaal qaadanayna abaarta sanadkan na soo gaadhay sanadkan kaliya abaarta waxaan mataqaanaa aanu gelinay lacag aad u badan annagoo taas ka duulayna waa inaan mataqaanaa fodar bankiyo waaweyn deegaanka laga helo ayaa mataqaanaa muhiim ah waxaa kaloo xusid mudan in calafka xoolaha ee deegaanka lagu caawiyo xoolo dhaqatada deegaanka Cafarta iyo Soomaaliland oo abaara bani ka dhaceen taasoo lagu cadeeyay darasnimada iyo walaaltinimada sidoo kale deegaankeenu waxa mataqaanaa taariikh u ah in xanfarta mataqaanaa aan mataqaanaa ka taageernay dhanka mataqaanaa xalafka ah iyagoo mataqaanaa maadaama ay bulsho sideen yihiin oo mataqaanaa bulsho xoolo dhaqatada maadaama ay hayeen ayaa mataqaanaa xafiisku ama mataqaanaa xukuumadda deegaanku ay garatay in la gaarsiiyo 30 baabuur oo mataqaanaa taasaabi ah
oo Sudan grass aad bay ugu farxeen aad bay mataqaanaa soo dhaweeyeen iyagoo taasna mataqaanaa ay keenayso isdhexgalka labada deegaan iyo mataqaanaa isdhexgalka xiriirka labada mataqaanaa shacabna ay door muhiim ah ka ciyaaraysa sanadkan kaliya 2008 waxaan qaybinay 560 oo bayla oo mataqaanaa xalabka taysan nasiiba Sudan grass oo aad qaali ah marka xukuumaddu direction-ka mataqaanaa ay qaadatay dhanka mataqaanaa abaaraha gobolka City in hal neef uusan dhimanin xalab la'aan iyo daawo la'aan darteed marka guud ahaan waxaa mataqaanaa gobolka laga hawlgeliyay laba mobile animal health team iyagoo mataqaanaa xoolo ka badan 2,900,000 oo neef ah adeega mataqaanaa talaalka iyo daaweynta la gaarsiiyay sidoo kale gobolka gudihiisa 400 oo hektar oo mataqaanaa Sudan grass inta lagu beeray mataqaanaa gobolka gudihiisa iyo mataqaanaa la soo saaraya iyadoo mataqaanaa waqti xaadirkan xafiisku uu ku jiro sidii goobtaasi lagu dhisayo baaqaro waaweyn oo fodar bankiyo ah si mataqaanaa la keydiyo waqti kale mataqaanaa deegaanka oo dhan mataqaanaa lagu distribute gareeyo xafiiska horumarinta xoolaha iyo reer guraaga dowladdeegaanka Soomaalida Itoobiya oo si cusub golaha baarlamaanka u ansixiyay qaab-dhismeedkiisa kala duwan ayaa waxa uu leeyahay 6 geed socod oo kala waaxda caafimaadka xoolaha iyo dabagalka xanaanada xoolaha waaxda wax soo saarka kheyraadka xoolaha waaxda calafka iyo daaqa xoolaha waaxda suuqgeynta xoolaha iyo wax soo saarka waaxda shaybaadhka daraasaadka iyo sahaminta cudurrada xoolaha iyo waaxda fidinta farsamooyinka iyo horumarinta xoolo dhaqatada haddaba 5 sano ee aan ku guda jirno ee 2008 bilaabatay waxyaabaha ugu muhiimsan ee xafiiska xoolaha iyo horumarinta reer guraaga uu qabanayo waxaa ka mid ah in lagu soo iibiyo daawooyin talaal iyo qalabka adeega xanaanada xoolaha miisaaniyadan 150 milyan oo bir isla markaana loo qaybiyo dhammaanba 11 gobol iyo 93 degmo in la xakameeyo 5 cudur ee xoolaha deegaanka faraha baan ku haya in dabagal iyo taakuleen la siiyo degmooyinka isla markaana la adkeeyo in kor loo qaado daboolka talaalka ku salaysan sahanka halista ee cudurrada oo hadda 150 la gaarsiiyay 75 in laga xakameeyo cudurrada caalka gudaha cayayaanka dulsaarka ku ah maqaarka ilaa 10 milyan oo neef in la sameeyo 12 daraasadood oo lagu sahaminayo halista cudurrada qarxa in si hor loo xakameeyo cudurka loo yaqaan PPR-ka oo ariga ku dhaca in la kordhiyo tirada goobaha caafimaadka xoolaha oo hadda 590 lana gaarsiiyo 900 in kor loo qaado heerka klinikada xoolaha oo 32 ah lagana qaado heerka C lana gaarsiiyo heerka B in shaybaadhka caafimaadka xoolaha oo hadda hal la gaarsiiyo 3 dhamaadka 5 sano in la kordhiyo rugaha talaalka lagu qaboojiyo oo hadda 2 lana gaarsiiyo 11 gobolba laga sameeyo lana kaashanayo wasaaradda heer federaal in looda iska dalka ah ee looda deegaanka lagu talaalay tiradooda la gaarsiiyo 3,000 iyadoo hadda taasi ay dhan tahay 700 in goobaha rimay gacmeedka oo hadda 7 laga dhigo 17 in aaladaha iyo farsamooyinka xulashada iyo taranka xoolaha wax soo saarka badan lagu fidiyo 10,000 oo qoysas xoolo dhaqata beeraley ah gaar ahaan kuwa goobaha dibadejinta ku nool in la darso 5 nooc oo xoolaha wax soo saarka hilibka iyo caanaha ku fiican in lagu fidiyo 15 degmo farsamooyinka xulashada ariga wax soo saarka fiican iyadoo la raaciyo nidaamka ka qaybgalka xoolo dhaqatada wax soo saarka caanaha oo waqti xaadirkan 10 milyan 150,527 litir sanadkiiba in la gaarsiiyo 8,692,853 litir wax soo saarka caanaha looda wuxuu taagan 2,644,200 litir in la gaarsiiyo 4,871,676 litir wax soo saarka caanaha geela oo hadda 4,780,084 litir in la gaarsiiyo 7,998,374 litir wax soo saarka caanaha idaha oo hadda 601,666 litir in sanadkiiba la gaarsiiyo 836,086 litir wax soo saarka caanaha riyaha hadda waxa uu taagan yahay 2,124,576 litir sanadkiiba waxaana qorshaysan in la gaarsiiyo 5,000,000
286,626 litir sanadkiiba dhanka hilibka waxa uu qorshaysan markaan eegno xafiiska wax soo saarka hilibka looda waxa uu hadda taagan yahay 7,859 tan waxaana qorshaysan in 5 sano la gaarsiiyo 19,556 tan wax soo saarka hilibka geela oo hadda taagan 12,016 waxaa qorshaysan in la gaarsiiyo 39,701 tan wax soo saarka hilibka idaha deegaanku hadda waxa uu taagan yahay 6,016 waxa loo qorsheeyay in la gaarsiiyo 8,439 tan wax soo saarka hilibka riyaha oo hadda taagan 7,868 tan waxaa qorshaysan in la gaarsiiyo 19,580 tan wax soo saarka digaaga markaan eegno waqti xaadirkan waxa uu taagan yahay 8,000 oo tan waxaa la qorsheeyay in la gaarsiiyo 34,000 oo tan wax soo saarka ukunta oo hadda 23,600,000 oo xabo sanadkiiba waxaa qorshaysan in la gaarsiiyo 42,883,060 xabo waxaa qorsheyn in la dhiso 10 goobood oo lagu badiyo digaaga nooca tayeysan loona qaybiyo qoysaska xoolo dhaqata beerleyda kuwa waliba goobaha dibadejinta laga sameeyo oo dhan 50,000 oo qoys wax soo saarka shinida malabka markaynu eegno iyadoo la adeegsanayo farsamooyinka casriga waxaa qorshaysan in la kordhiyo tirada gaaguraha casriga ah oo hadda ah 1,000 xabo lana gaarsiiyo 6,000 wax soo saarka malabka oo hadda taagan 6,099 tan waxaa qorshaysan in la gaarsiiyo 10,026 tan dhinaca saamaha iyo argaha markaan eegno hadda waxa uu taagan yahay 34,000 waxaana la qorsheynayaa in la gaarsiiyo dhammaadka 5 sano 84,603 waxaa la fidin doonaa farsamooyin lagu dhowro tayada hargaha iyo saamaha iyo weliba habka loo ilaaliyo tayada maqaarka xoolaha ka hor gowraca gowraca kadib wax soo saarka kalluunka markaynu eegno deegaanka Soomaalida Itoobiya waxa uu ku habboon yahay wax soo saarka kalluunka maadaama uu leeyahay 3 webi oo waaweyn iyo biyo xidhano kala duwan asaatee khayraadka kalluunka wali aad ayuu u hooseeyaa deegaanka سادرتي wax soo saarka kalluunka hadda waxa uu taagan yahay 3,200 oo tan waxa la qorsheeyay in la gaarsiiyo 4,640 tan in la fidiyo farsamooyinka casriga ee kalluumaysiga webiyada haraha iyo waliba biyo xidhanada in lagu beero dhamaanba biyo xidhanada deegaanka nooca kalluunka ee ku habboon biyo xidhanada in la baro beerleyda iyo xoolo dhaqato beerleyda habka looga faa'iideysto kalluunka dhanka calafka xoolaha ee tayeysan markaynu eegno waxaa la fidin doonaa 16 nooc oo ah nooca calafka tayeysan oo 7 nooc oo digraha iyo waliba 9 nooc oo cawska waxaana kor loo qaadi doonaa tirada xoolo dhaqatada ee ka faa'iideysanaysa oo hadda 45,000 waxaan la gaarsiin doonaa 80,000 oo qoys wax soo saarka calafka oo hadda 15,000 oo tan waxaa la qorsheynayaa in la gaarsiiyo 50,000 oo tan waxaa la balaarin doonaa kaydka calafka iyo daaqa oo hadda ah 400 oo hektar waxaan la gaarsiin doonaa 2,000 oo hektar waxaa la asaasi doonaa 36 kaydka calafka iyo daaqa xoolaha oo ku kala yaala 22 degmo waxaa qorshaysan in nidaamka seeraha iyo habdaaqsimeedka tayeysan laga hirgeliyo deegaanka in dhul daaqsimeedka lagu abuuro geedaha calafka xoolaha ee tayeysan isla markaana laga xakameeyo geedaha dhul daaqsimeedka wiiqa in laga tirtiro geedka garanwaaga dhul dhan 100,000 oo hektar calafka xoolaha ee laga helo warshadaha shiida saliidda sonkorta iyo burka in kor loo qaado waxa waaxda u qorshaysan in calafka iyo nafaqeynta laga helo mankaalka buushiga iyo guushka sonkorta laga sameeyo in lagu wacyigeliyo bulshada deegaanka isticmaalkooda iyo waliba suuqayntooda mashaariica uu gacanta ku haya xafiiska horumarinta xoolaha iyo reer guuraaga dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya waxaa ka mid ah mashruuca u adkeysiga abaaraha iyo kabista bulshada xoolo dhaqatada ee magaciisa marka la soo gaabiyo loo yaqaano DRSLP oo ka howlgala 9 degmo ka mid ah deegaanka mashruuca labaadina waxa uu yahay mashruuca goboleedka dhisidda iyo adkeysiga bulshada xoolo dhaqatada ee RPLRP oo ka howlgala 6 degmo iyadoo mashruuca saddexaadna uu yahay mashruuca dabargoynta cudurka susunka ama kaligi noolaha ee PPR-ka oo ka howlgala 68 degmo oo ka mid ah deegaanka